Assalaamu calaykum. Su'aasha ah Soomaalidu ma Carab baa mise waa Afrikaan? Waxaa hubaal ah inay tahay su'aal ay Soomaalidu ku muransan yihiin, waxayna u qaybsan yihiin kuwo isku arka in nasabkoodu uu ka soo faracmay reer Binu Haashim, iyo kuwo ku doodaya qofka Soomaaliga ahi uu yahay Afrikaan ka soo faracmay isirka loo yaqaano Kushitiga, oo ah isirka ka soo jeeda dadka Afrikaanka ahi kuna abtirsadaan Xaam bin Nuux. Soomaalida oo ah dad isku diin ah oo isku dhaqan ah sidoo kalena isku luuqad ah ayaa ah dadyowga farakutiriska ahi oo weli iyadoo lagu jiro qarnigii 21aad ka doodaya meesha ay ka soo jeedaan iyo waxa ay isirkoodu yahay. Haddaba Soomaalidu ma Afrikaan baa oo la nool dad ay midab mooyaane sumad kale aysan wadaagin, mise waa dad ka soo jeeda Carab oo aan luuqadooda awoowayaashoodii ku hadli karin? Muuqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa waxa ay ka qoreen taariikhyahanada Soomaaliyeed iyo kuwa Carbeedba isirka Soomaaliyeed, meesha ay Soomaalidu ku abtirsadaan. Halka aad nagala socotaan waa Aragtida Official. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar channelkeena, sidoo kale follow soo dheh page-ka aan ku leenahay barta Facebooka. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Mahadsanidin. Soomaalida ayaa ah qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha dega Geeska Afrika, waxayna u qaybsamaan qabaa'ilo iyo reero asalkooduna yahay reer guuraa. Marka la eego Geeska Afrika, waa dadka keliya oo isku dhaqan, diin iyo afwadaaga ah. Soomaalida oo gumaystihii reer galbeedka kala irdheeyey una sameeyey xuduudo iyo xeyndaabyo, ujeedada ugu weyna ee laga lahaana ay ahayd in la wiiqo wadajirkoodii iyo awooddoodii, ayaa ah dadyowga farakutiriska ah ilaa iyo maanta ka dooda meesha ay isirkooda ama isir ahaanba ay ka soo jeedaan. Waxayna u kala qaybsan yihiin laba qaybood: kuwa ku doodaya in ay ka soo jeedaan Carab iyo kuwa ku doodaya in ay Carabta diin mooyaane aan wax kala wadaagin, ayna yihiinna Afrikaan dhul iyo midab wadaagaan Afrikada kale. Haddaba aynu isdultaagno koox kasta iyo halka salka ku hayso dooda ay aaminsan yihiin. Marka hore aynu isla fahanno in aysan jirinba ilaa iyo hadda baaritaan iyo daraasado rasmi ah oo laga sameeyey meesha Soomaalida asal ahaan ay ka soo jeedaan. Nasiib daro, ma jirto cid mas'uuliyad gaar ah iska saartay in ay ka jaahil bixiso dadka Soomaaliyeed halka ay ka yimaadeen iyo cidda ay ku abtirsadaan. Laakiinse waxaa jira xilliyadii hore in qabaa'ilada Soomaaliya isugu faani jireen isirkooda, waxaana dhici jirtay in qabaa'ilada qaar ay ku faani jireen in isirkoodu uu ka soo jeedo Carab, gaar ahaan reer Binu Haashim. Badankood dadyowgani ma haystaan wax muujinaya ama u caddaynaya in isirkoodu uu ka soo jeedo reer Binu Haashim. Qaybtood waxa ay ahayd jeclaansho ay u qabaan nabigeena Muxammad sallallahu calayhi wasallam iyo diinteena suuban. Dabcan way jiraan kuwo haddii ay abtirsadaan laga yaaba in ay galaan reer Binu Haashim iyo sidoo kale Qurayshba. Laakiin markii la eego dhaqanka baadiyaha oo ah meesha ay Soomaalidu ka soo jeedaan, waxaa caado ka ahaan jiray ilaa iyo haddana ah in qabaa'ilku lagu ammaano laguna aflagaadayo isirkooda iyo meesha ay ka soo jeedaan, heer la gaarsiiyey qabaa'ilo qaar in lagu faquuqo oo dadka laga dhex saaro, laguna dhaqmo qaab bani'aadinimada iyo islaamnimadaba ka baxsan, iyada oo uusan garanaynin kan wax takooraya sababta uu takoorayo iyo kan la takoorayo uusan garanaynin sababta loo takoorayo, oo dadkii kale looga dhex saaray. Sidoo kale ilaawi mayno in ay jiraan qabaa'ilo Carbeed degan dalka Soomaaliya lana falgalay dadka qarniyo badan xukumayeyna. Waxaa jiray Carab badan oo isugu jira saaxiibo iyo dadyow kalena oo xilligaasi islaamka bilowgiisii ahaa u soo hijrooday Geeska Afrika. Soomaaliyana ay ahayd albaabkii ay ka soo galeen. Arrintaasi ayaa keentay in Soomaalidu yeeshaan dhaqan Carbeed iyo islaamnimo. Waxay intaasi ka dambeeyey xiriirka Carabta iyo Muslimiinta ay la yeesheen dadka Geeska Afrika wuxuu noqday mid la taaban karo oo waaqici ah, waxayna awood u yeesheen in ay faafiyaan diinta Islaamka oo ay ka
dhisaan geeska Afrika magaalooyin iyo boqortooyooyin iyo ilbaxnimo, kuwaasi oo ilaa iyo maanta dhismayaashoodii iyo raadadkoodii ay ka taagan yihiin xeebaha dalka Soomaaliya. Waxayna saameyn ku yeesheen luqadii, dhaqankii iyo dadnimadii Soomaaliyeed. Waxaa kobcay xiriirka Carabtu ay la lahaayeen Soomaalida, waxayna noqdeen Soomaalidu kuwa calanka u qaada oo hormuud u noqday ku faafinta diinta Islaamka geeska Afrika. Haddii aynu nimaadno, luqadda Carabiga ayaa boos weyn ku dhex lahayd bulshada Soomaaliyeed, waxayna si weyn loogu faafiyey looguna bartaa masaajidada, iskuulada iyo dugsiyada Qur'aanka. Waxayna ahayd luqadda Carabiga had iyo jeeraale luqadda rasmiga ah ee barbar socota af Soomaaliga dhanka isgaarsiinta iyo qoraalka iyo qorista qandaraasyada, diiwaangelinta taariikhda iyo suugaanta iyo faafinta shucuurta wadaniyadeed ee dadweynaha Soomaaliyeed gumaystihii ka hor iyo xorriyadii kadib. Inkastoo gumaystaha reer Yurub oo uu isku dayay in uu ka fogeeyo dadka Soomaaliyeed afka Carabiga, isagoo garwaaqsanaa jacaylka iyo ku dheganaanta ay Soomaalidu luqadda Carabiga ugu dhegan yihiin ay ku xiran tahay jacaylka ay u qabaan diinta Islaamka. Maadaama ay tahay luqadda Qur'aanka, ayuu sameeyey isku dayo badan oo lagu tirtirayo raadadka laguna fogeynayo Soomaalida wax walba oo Carabiga ku saabsan. Laakiinse culimadii diinta, madaxdii iyo halgamayaashii Soomaaliyeed ayaa marnaba aqbalin isku dayga gumaystaha. Maadaama aan xilligaasi si rasmi ah loo qorin luqadda Soomaaliga, waxayna Soomaalidu adeegsan jireen wax ku qori jireen qaab qoraalka Carabiga, waxaana markii dhambaalada la qorayo la adeegsan jiray xarfaha Carabiga. Ilaa markii dambe dowladii kacaanka oo uu hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre ay go'aansatay in ay qorto luqadda Soomaaliya iyadoo adeegsanaysa xarfaha Laatiiniga. Ilaa iyo maanta xarfaha rasmiga ah ee aynu adeegsano. Tallaabadani oo ay in badan indheergaradka iyo culimadii Soomaaliyeed oo ay u arkeen darbaaxyo adag oo kala fogeynta dadka Soomaaliyeed bay'ada Carabeed oo laga fogeeyey ee ay tan iyo markii Islaamka soo gaaray jihaysteen si gebi ahaanba usoo afjarantay isku xirnaashihii luqadda Soomaaliga iyo midda Carabiga. Inkastoo dowladii kacaanka uu hormuudka ka ahaa Jaale Siyaad qaadatay tallaabada ay ku kala saaraysa Soomaaliga iyo Carabiga, haddana sanadkii 1974 waxaa mar kale go'aansatay in ay ku biirto Soomaaliya jaamacadda Carbeed, iyadoo xilligaasi ay u arkaysay in Carabtu ay yihiin isbahaysiga ugu dhow ee Soomaalida la wadaaga dhaqan iyo diinba. Waxayna noqotay Soomaaliya dalkii ugu horeeyay ee ku biira jaamacadda Carabta, luqadiisi koowaadna looga hadlana ahayn luqadda Carabiga ka hor inta aysan ku soo biirin Jabuuti. Haddii aynu ka nimaadno dadka aaminsan in ay ka soo jeedaan isirka Carbeed, aynu eegno Soomaalida aaminsan in ay yihiin Afrikaan oo aysan asal iyo raad toona ku lahayn Carabta. Waxayna ku doodaan in isirka Soomaalida uu ka soo jeedo isirka loo yaqaano Kushiitiga, oo ah isirka 10 qarni ku noolaa geeska Afrika. midab ahaan iyo sumad ahaan ay aaminsan yihiin in badan ay Soomaalidu ka wadaagaan. Sidoo kale luqadda Soomaaligu ay tahay luqad ka mid ah luqadaha la isku yiraahdo Kushiitiga. Waxayna sidoo kale dadka ku doodaya ku biiritaanka Soomaalidu ay ku biirtay jaamacadda Carbeed ay ahayd arrin loogu dan lahaa siyaasad iyo in Soomaaliya ay hesho garab aysan isir shaqo ku lahayn. Dadkan ayaa sidoo kale isweydiinaya sababta weli Soomaali badan isugu dhijiyaan in ay yihiin Carab, iyadoo Carabtu quursadaan kana fogeeyaan astaanta iyo sumadda qofka Soomaaliga ahi ayaa ah mid in badan ka fogeeyaan astaanta Carbeed, sidoo kale ka duwan astaanta Afrikaanta. Midab ahaan, midabka Soomaaliyeed ma ahan cadaan sida Carabtii oo kale, sidoo kalena ma ahan madow saa'id ah sida Afrikaanta oo kale. Timihiisu uma adka sida Afrikaanta oo kale, umana jilicsana sida Carabta oo kale, balse wuu u dhaxeeyaa. Waxayna astaamahaasi kala siman yihiin qowmiyadaha Canfarta, Oromada iyo Xabashida. Marka la qeexo qofka Soomaaliga ahi, cidna ma dhahdo waa qof Carab ah marka la joogo qurbaha ama adduunka,
balse waxaa lagu qeexaa qofka Soomaaliga ahi inuu yahay qof madow ahi oo kasoo jeeda qaaradda Afrika, kana mid ah qoomiyadaha dega Afrika, taasoo inaga dhigaysa kuwo garowsan inaanu nahay dad Afrikaan ahi midab ahaan iyo dhul ahaanba. Sidoo kale Carabta la wadaaga diinta iyo dhaqamada suuban qaar. Muhiimna ma ahan in qofka uu arko in meel sare iyo miiqaam uu ku gaarayo isir iyo qabiil toona, balse waxaa la isku dhaafay adduun iyo aakhiraba caqiidada Islaamka iyo kartida qofka. Waxaana tusaale ugu filan Abu Lahab oo ahaa adeerka Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, isir ahaan kasoo jeeday reer Binu Haashim, iyo Bilaal binu Rabaax oo ahaa mu'adinkii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam kana soo jeeda Xabashida. Inta ay isu jiraan darajo ahaan maalinta qiyaame, in midna uu ku jiro naarta midka kalena uu sanqadha Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu ka maqlayo jannada isaga oo maalin hurda. Haddaba haddii aan su'aal ku weydiiyo, Soomaalidu ma Carab baa mise waa Afrikaan? Noogu reeb fikirkaaga, waa noo muhiim. Fadlan muuqaalka ha ilaawin inaad like saarto, sidoo kalena aad la wadaagtid asxaabtaada. Mahadsanidin.